بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كنال كيني SMCC. ومحي علامتها النلشة. علامتها النلشة waxaa lagu cabiraa shaqooyinka aasaasiga ee jirka uu qabto waxaana jira afar calaamadood oo muhiim ah oo si joogto ah u kormeeran bixiyaasha daryeelka caafimaadka waxayna kala yihiin heerkulka jirka, cadaadiska dhiigga, wadna garaaca iyo neefsashada. calaamadahani waxay waxtar u leeyihiin ogaanshaha ama la socodka dhibaatooyinka caafimaad waxaana lagu cabiri karaa goobaha caafimaadka, guriga iyo meel kasta oo ay ka dhacdo xaalad caafimaad daro oo degdeg ah. waxaana cabiri kara qof waliba oo aqoon u leh. daawade aan ku horeeyay heerkulka jirka. heerkulka jirka waxyaalaha saameeya waxaa ka mid ah jinsiga qofka midka uu yahay rag ama dumar, baahan intuu jiro, shaqada uu qabto iyo cunada uu cuno. heerkulka waxaa laga rabaa cabir ahaan inuu noqdo inta u dhaxayso 35.5 ilaa 37.5 centigrade. waxaana laga cabiraa meelaha kala ah afka, malawadka, kilkisha iyo dhagta korkeeda. waxaana lagu cabiraa mishiin yar ee loo yaqaano thermometer. cadaadiska dhiigga waxa uu muhiim u yahay nolosha qofka caafimaadka qabo. cadaadiska dhiiggiisa waxaa laga rabaa in uu noqdo inta u dhaxayso 100 ilaa 120 dhiigga kore, 80 ilaa 70 dhiigga hoose. systolic iyo diastolic ayaa kala dhahaa. haddii uusan jiri lahayn cadaadiska dhiigga, oxygen iyo nafaqo ma gaari lahayn dhammaan unugyada jirka. wadna garaaca waxa uu ka mid yahay calaamadaha nolosha waxaana lagu cabiraa daqiiqadii inta uu garaacmo. dadka waa ay ku kala gedisan yihiin wadna garaaca marka loo eego da'da ay jiraan, jawiga qofka uu ku jiro sida cabsida, xanaaqa, farxadda iyo xanuunka. wadna garaaca waxaa laga cabiraa meelo badan oo ay ka mid yihiin gacanta qaybteeda kala goyska ee ku aadan suulka hoostiisa ee loo yaqaano camaacun. waxaana lagu cabiri karaa gacantaada caadiga ah adigoo waliba saaraya laba farad camaacunta dusheeda, kadibna waxaad tirinaysaa wadna garaacaad halkaas ka maqli doonto. qofka qaangaarka ee caafimaadka qabo waxaa laga rabaa daqiiqadii inuu garaacmo inta u dhaxayso 72 ilaa 100 jeer. neefsashadu waa dhaqdhaqaaqa hawada ay samayso sanbabada marka uu jirka qaadanayo oxygen iyo waliba markuu iska soo saarayo hawada jirka uu isticmaalo ee loo yaqaano carbon dioxide. waxaa laga rabaa qofka caafimaadka qaba oo qaangaarka ah inuu halkii daqiiqo neefsado inta u dhaxayso 12 ilaa 24 jeer. caruurta lamid ma aha dadka waaweyn oo waa ay ka neefsi badan yihiin sababtoo ah waxa ay ku jiraan korniin. waad ku maasan tahay daawashada fiidiyogan halkaas ayaanu ku simeynaa.